السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا magacaygu yahay Liibaan Xirso Faarax. Halkan waxaan rabaa inaan ku duubo koorso yar oo runtii aad muhiim u ah. Koorsadu waa qaybo badan tahay. Waxaan rabnaa ilaa iyo 2 qaybood inaan ka dhigno hadduu Ilaahay idmahayo. Casharkaan ka hadlana maanta waxa weeye transferring loads all element. Say loadska iskugu gudbiyaan elementyada sida slaabka, beamka, columnka, footingka. Anoo mid walba baranana loadka uu qaadayo, qaabka uu gudbinayo midka kale, ilaa iyo finalka anoo isla gaari doona. Si overview haddaan uga hadlo transferring loads all elementiga, elementiga ka hadlana waxaa ka mid ah slaabka 1, beamka iyo columnka iyo footingka. Afartaas shay baan ka hadlanaa. Say loadska iskugu gudbiyaan waana afarta shay oo muhiim u ah waxa weeye structuralka waliba guriga aad muhiim u ah culeysyada ugu badan haya. Haddii qofku injineerkana intaas uu loadskooda xisaabin karo aysan waxba u dhimayn. Waxaan ka hadlanaa 1 waa slaabka anoo 2 qaybood u kala saari doona. Qaabku slaabku ugu gudbiyo beamka, qaabku beamku ugu gudbiyo columnka, columnka qaabku ugu gudbiyo culeyska footingka. Ilaa iyo footingkana wuxuu u gudbiyaa ground beamka ama groundka wax loo yaqaan dhulka ayuu u gudbinayaa oo culeyska footingka ciidda ayaa qaadaysa. Ciidda laftirkeedana qofkii injineerka ahi waa muhiim inuu iska hubiyo culeyska uu saarayo waa inuu yaqaanaa, culeyska ciiddu qaadaysana waa inuu laftigeeda yaqaanaa. Marka iyadu kiis kale weeye qaabkan ku xalinaynaa insha Allah hadduu Alla idmo. Maanta waxaan rabnaa inaan isla aragno slaabka 2 qaybood baa slaabka baan u qaybinaynaa. Waxaa la dhahaa one way slab iyo two way slab. Labada slaab baa badanaa muxuu ahaa flat slabka la dhahayo. Labada slaab baa laga yaabaa badanaa inaad la kulantid. Slaab kale waa jira oo flat la dhaho muxuu ahaa cantilever iyo kuwo fara badan iyagana way jiri karaan. Laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno labadan slaab. Two waygu waa markii less than 2 waa markii ly-da loo qaybiyo lx-ta dhinaca weyn marka u qaybisay dhinaca yarka. Haddii natiijada kugu soo baxaysa ay 2 ka yar tahay 2 way slab baa u qaadanaa. One way slabkuna waxa weeye waa haddii ly-da ama dhinaca weyn ee slaabkaagu oo loo qaybiyo dhinaca yarka ahi ay 2 ka badato ama la ekaatahay one way baa dhahaysaa. Shaqadii baan guda galanaa insha Allah. Balankan baan haysanaa anoo qaybihiisii kala duwanaa ka soo shaqeynay column layoutkii, foundation layoutkii intaba. Laakiin maanta waxaan rabnaa waxa weeye muhiim noo ma ahan foundation layoutkaas, laakiin waxaa muhiim noo ah slaabka. Slaabku waa kan culeysku uu qaadayo iyo culeysku uu gudbinayo beamka, beamku culeysku uu gudbinayo columnka, columnku culeysku uu gudbinayo footingka. Marka caawa waxaan rabnaa ka hadalno slaabka, beamka iyo columnka. Intaas baan rabnaa ka hadalno. Intaasaa noogu muhiimsan caawa casharkeena. Waa kana slaabkii. Marka koowaad shaqada waxaa ka bilaabaysaa horta inaad iska hubisid labadii nooc aan soo sheegnay slaabku waa noocee, ma one way ba mase waa two way. waa xisaabinaynaa. Waxaan leenahay horta distancegiisu qaybtan waa 4.3 qaybtan kalena waa 4.3 oo dhinaca kale ayay ku taallaa. ama se halkan baan dhiganaa haddaan rabno. waxaan ogaanaa nooc dhinacan kale distancegeeda baan ogaanaynaa. waa shaqo la rabo hadda inaan bilowno. waxayba noo noqotay 3.49 ayayba noo noqotay. dadkaan ku qaadanaa marka waxaan leenahay 4.3 oo loo qaybiyo 3.9 waa intee. calculator baan adeegsanaynaa, waan xisaabinaynaa. waxaa noo soo baxaya ama two way ama one way mid unbuu noqonayaa. waa 47 waa 4.3 waa dhinaca weyn oo loo qaybiyey 3.9 waa 1 less than 2 maadaama ay ka yartahay muxuu yahay slaabka muxuu noo yahay
wuxuu noo yahay two way slab buu noo yahay. maadaama uu two way slab noo yahay, two way slabku afarta dhinac buu u gudbiyaa culayska. afarta dhinac ayuu u gudbiyaa. one waygana waa isla arki doonaa isaga, laakiin hadda afarta dhinacba buu u gudbinayaa culayska buu u gudbinayaa. dhinaca weyn slabku wuxuu ugu gudbinayaa culayska qaab trapezium buu ugu gudbinayaa. dhinaca yarkaa oo LX-ka loo yaqaano wuxuu ugu gudbinayaa qaab triangle ayuu ugu gudbinayaa. oo ku tusayaa iyadoo sawira baan ku tusayaa. L-waydu waa dhinaca weyn. maadaama dhinaca weyn ay tahay, wuxuu ugu gudbinayaa qaab wuxuu ugu gudbinayaa trapezium ayuu ugu gudbinayaa. qaab trapezium ayuu ugu gudbinayaa culayska, ayuu beamku ugu gudbinayaa. halka dhinaca yarkaana uu ugu gudbinayo qaab triangle ayuu ugu gudbinayaa. intaas baa nooga filanba. qaabkan dhinacaana waa dhinac la mid ah isna sidoo kale waa LX weeye. qaab triangle ayuu ugu gudbinayaa. dhinaca kalena wuxuu ugu gudbinayaa, maadaama ay la mid tahay, wuxuu ugu gudbinayaa qaab trapezium ayuu ugu gudbinayaa. anuu ogaan doona mid walba iyo culayska ay gudbinayso intaba. waa kana L-waydan waa dhinaca weyn mar walba wuxuu ugu gudbinayaa qaab trapezium, dhinaca yarkaana qaab wuxuu ugu gudbinayaa triangle. marka waxaan rabnaa inaan soo saarno marka koowaad slabkani loadka uu qaadayo baan rabnaa inaan ogaano. slabka waxaan ku ogaananaa, waxaan adeegsanaynaa Excel baa badanaa la adeegsadaa. short spanku waa LX, waa dhinaca yarkaa weeye. short span baa loo yaqaanaa, waa LX. long spanna waa L-wayda, waa dhinaca weyn. heightkuna mar walba waxa weeye waa thicknesska aad ka dhigaysid slabkaaga. top coverna waa inta birtaadu spacingka ay u dhexeynayaan weeye. intaa waa iska gifin, wuu ku siinayaa 20kaas la qaataa, top iyo bottomka labadaba. sidoo kale self weight waxa la dhahaa jira, oo shay walba self weight buu leeyahay. self weightkiisa maxaa lagu helayaa? badanaa waxaa lagu helaa self weightkiisa heightka oo lagu dhuftay unit weightka. labadaan oo la isku dhuftay baa waxay noqonayaan self weightkaas buu noqonayaa. waxaa jira waxa loo extra dead loadka anagu u eegaynaa BS codeka. waxyaaba waxaa jira standard oo la qaatay baa jira iyada. badanaa hadduu gurigu yahay residential uu yahay, guri deegaan uu yahay, 1.5 labo waa qaadan kartaa. BS codeka baa ku xadidaya. haddii meeluhu ay yihiin meelo dabaqyo waaweyn oo kale oo culaysyo waaweyn qaadayana, intaa waa ka badan kartaa. waxaa jira imposed waxaa jira imposed loadka waa maxay? waa waxyaabaha left loadka oo gurigii dad baa fuulaya, alaab baa la dhiganayaa, magaciisii meesha waxaa laga yaabaa meel inay tahay meherada inay tahay, dad baan iskugu imaanayaan. waxaasoo dhan baa waxaa la dhahaa imposed life baa la dhahaa, life load baa la dhahaa. iyadana badanaa waxaa loo qaataa 3 baa loo qaataa. waxay ku xiran tahay hadbana waxay ku xiran tahay waxa aad dhisaysa ay ku xiran tahay. design loadkana waxa weeye waa loadka uu qaadayo slabkaasi. halkan haddaan iyadana ogaa sharaxaad ka bixino, entry conditions baa la dhahaa. waxa weeye slabkaaga dhinac ee laga xigaa. inta hadba dhinac laga xigo baa halkan lagu sharaxayaa. hadduu halkan slab ka xigo waxaa la dhahaa continuous baa la dhahaa. hadduu slabkaaga waa kana slabkana dhankan ka xiga, waxaa la dhahaa continuous baa la dhahaa. haddii dhinacaas wax slaba ka xiginna waxaa la dhahaa discontinuous baa la dhahaa. macnaheedu waa maxay? macnaha ma soconayo, slabkaaga ma sii soconayo, halkaasuu ku egyahay. markii laakiin continuous waa maxay? slab kalaa ku xiga, slab kalaa kusii xiga. hadda marka waxaan rabnaa bal inaan slabkee ku dabaqno. slabkeena rabnaa ku dabaqno. slabkeena horta dhinacaa lagama xigo oo wax slaba kama xigo, oo gurigaba dhinaca kama socdo. dhinacaanna waa sidoo kale, laakiin waxaa laga xigaa waa dhinacaan iyo dhinacaan. dhinacaan slab baa ka xiga, dhinacaan slab baa ka xiga, dhinacaasna slab baa ka xiga. waa kale dhinac slab baa ka xiga, dhinac slab baa ka xiga. marka maxaa leenahay? waa L-wayda hal dhinac baa laga xigaa, LX-tana hal dhinac baa laga xigaa. waa ku laabanaa marka waxaa leenahay dhinacan L-wayda